بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالك الصومالية مقع ددوينها الصوماليات محكمة gobolka Banaadir qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta oo taariikhdu tahay 6 bishii 3 2024 maxkamadda gobolka Banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 147/2024 kaasoo eedeysana ka yahay Sayid Cali Macalin Daawud ina bilsan xirsi Cusmaan 24 jir ah ku dhashay Xamar Digandar Keenley kuna xiran xarunta dambi baarista CID kuna eedeysan qodobada 434 lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 440 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dana xiray 5 bishii 2024 maxkamadda gobolka Banaadir markay aragtay in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud uu maxkamadda ka hor cadeeyay in asiga iyo marxuumadu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in asiga oo careysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gubanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in eedeysanuhu qorsheeyay sameynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedeysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajo yar taasoo cadeynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo cadeynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedeysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedeysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacadaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari oo u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyay hadalkii marxuumaddu ay ku dhahdo oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tambadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sar ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ku weysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 440 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6 bishii 3 2024 wabillahi tawfiiq